dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa si rasmi ah u shaacisay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka iyadoo tallaabadani ay si toos ah u dardargelinayso geedi socodka doorashada madaxweynaha oo la filayo in ay qabsoonto 48 saac ee nagu soo wajahan. liiska cusub ee xildhibaanada ayaa laga soo saaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed xilli ay wali taagan tahay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. ku dhawaaqista xildhibaanada cusub ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu ku dadaalayo inuu sii xijisto kursiga isla markaana uu qabto doorasho degdeg ah oo mar kale dib loogu dooranayo. guddiga doorashada ee dhawaan la magacaabay ayaa la filayaa inay si rasmi ah u bilaabaan habraaca doorashada iyadoo oo mudanayaasha cusub ay dooran doonaan guddoonka baarlamaanka iyo waliba madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. wararka laga helayo gudaha magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ammaanka magaalada si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamo kala duwan la dhigay goobaha muhiimka ah ee magaalada si loo sugo amniga doorashada. si kastaba ha ahaatee indhaha siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan ku sii jeeda magaalada Baydhabo halkaas oo 48 saac la soo dhaafay ay ka soconayeen arrimaha doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo kala duwan ku diyaarinaysay degmada Buur-Xakaba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadeeda hadda waxay u dhaqaajisay dhinacaas iyo magaalada Baydhabo waxa ayna ka baxeen degmada Buur-Xakaba iyagoo oo ku wajahan difaacyada hore ee ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin meel ka baxsan gudaha magaalada Baydhabo xilli ay koonfur galbeed u diyaar garoobayso dhamaystirka hanaanka doorashada ee aysan ogolayn filla Soomaaliya. ku dhawaad 2,000 oo askari oo dowladda federaalka ay geysay Buur-Xakaba kuwaasi oo qaarkood diyaarado lagu keenay qaarna ay dhulka mareen ayaa waxa ay ka baxeen magaalada Buur-Xakaba waxayna u jihaysteen dhinacaas iyo magaalada Baydhabo. ciidamadan ayaa qaarkood waxa ay ka soo baxeen gobolka Shabeellaha Hoose waxayna dhex mareen deegaano ay joogaan ururka Al-Shabaab iyagoo aan wax iska caabin aan la kulmin. dowladdu waxa ay doonaysaa in 48 saac ee nagu soo wajahan ay tijaabiso awoodeeda inta ay leegtahay dhinaca koonfur galbeedna waxa iyaguna sidoo kale ay diyaar garow ugu jiraan inay iska caabiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya duulaanka ay ku soo qaaday koonfur galbeed Soomaaliya. labada dhinac waxa ay doonayaan inay tijaabiyaan awoodooda iyadoo dhinaca Baydhabo ay sheegayaan inay awood u leeyihiin inay ka hortagaan duulaan kasta oo lagu soo qaado koonfur galbeed sida ay sheegayaan saraakiisha ciidamada ee koonfur galbeed Soomaaliya. Buur-Xakaba xalay saqdii dhexe ayaa waxaa laga saaray dhammaan ciidamadii maalmahan lagu aruurinayay waxaana hadda ay boorsooyinkooda xirxiranaya wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ciidanka ku dhex jira. sidoo kale Laftagareen ayaa waxaa la sheegay in magaalada Baydhabo dhinac kasta uu heegan ka geliyay ciidamo kala duwan iyadoo oo jidadka muhiimka ah la sheegayo in la geliyay miinada dhulka si aysan ciidamadaasi u soo gudbin oo ayna ugu fududaanin inay gudaha u soo galaan magaalada Baydhabo. ciidamada koonfur galbeed ayaa waxay ku sugan yihiin deegaanka lagu magacaabo Daynuunay oo 18 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo. ciidanka Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay Laftagareen ay u ballan qaadeen in ay caawiyaan oo duulaankan lagu soo qaaday magaalada Baydhabo ay ka caawiyaan. wixii warar ah ee soo kordha mar walba halkan kala soco channelka subscribe noo saar noo share garee oo noo la garee barnaamijka mahadsanidin.